رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبدي برre ayaa maanta xariga ka jaray mashruuca koronto gelinta goobaha caafimaadka dadweynaha. Mashruucan ayaa waxa uu yahay mid la rabo in si bilaash ah loo siiyo goobaha caafimaadka koronto. waxaana mashruucan soo qabaqaabiyay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo horkacayo Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiiro iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka. waxaana uu mashruucan u yahay in goobaha caafimaadka la siiyo koronto bilaash ah si qayb uga noqdo socodka shaqooyinka isbitaalada dadweynaha. waxaana mashruucan la gaarsiin doonaa dhammaan gobolada dalka iyadoo la filayo in isbeddel ay ku yimaadaan hirgelinta mashruucan korontada tayeenta iyo balaarinta adeegyada ay bixiyaan isbitaalada dalka. ugu horeen munaasabadan xariijarka ayaa waxa ka hadlay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame isagoo sheegay in mashruucan korontada lacag la'aanta ah ee lagu siinayo goobaha caafimaadku yahay mashruuc guuleystay lagana soo hormariyay waqtigiisa. marka shaqadan koronto gelinta isbitaalada ra'iisul wasaare soolaro badan wadanka waa la keenay waa galaan wuxuu kaga duwan yahay mashruucan waa mashruuc ka casriyeysan mashaariicdii hore sida aad ku aragtay presentationada la sameeyay inkastoo waqtigu inagu yaraado la soo koobay. wuxuu leeyahay habeen iyo maalin inay wada shaqeeyaan qorraxdu maalintii bay joogtaa maalintiina waa la kaydiyaa isbitaal martiini baan soo marro ku soo tusnay. dhan kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada ka soo qayb galay munaasabadan xariijarka. maanta waxa halkan lagu daahfurayo waxa waaye xarumaha caafimaadka danta guud ee solarka la geliyay korontada la geliyay waa wax weyn oo Soomaali u soo kordhay. baahi weyn ayaa ay qabeen xarumaha caafimaadka oo public ah saa ogtihiin xarun caafimaad ma shaqeyn karto koronto la'aan. haddii saalada qaliinka ay tahay haddii ay tahay ICU-da hadday tahay haddii meesha niinayta carruurta yarka lagu xanaaneeyo hadday tahay haddii ay tahay cold chain-kii iyo meelaha talaalka lagu keydiyo hadday tahay daawooyinka meelaha lagu keydiyo xarun caafimaad oo koronto ka maaranta ma jirto mar kastaba. marka waxa la isticmaalayay korontadii private-keeda la isticmaalayna qarashkeedii aad ayuu u badnaa. muxuu ahaa waa in la bixiyo aad u adkeed deymo badan aan ugu yeeshay culays badan ka taagnaa. marka mashruucan wax badan koronto gelinta xariijarka koronto gelinta xarumaha caafimaadka maxaa yeelay caafimaadka halkaana waa laga sheegay waa adeega ugu aasaasisan ee bulshadeena u baahan tahay sida ay bulsho kasta oo kale ay ugu baahan tahay. mudane ra'iisul wasaare laba kalmadood baan rabaa inaan ku soo koobo. mid waxa weeye wasaaradda maaliyadda iyo doorka ay ku leedahay horumarinta maalgelinta korontada iyo biyaha guud ahaan. midda kalena waxa weeye warbixin yar oo aan ku darayo agaasimo furtuun halkan ka sheegtay xarumaha. ugu dambeyn wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa ka hadlay xariijarkan mashruucan koronto gelinta goobaha caafimaadka dadweynaha. korontadan aan maanta isbitaaladeenna iyo iskuulladeena iyo jaamacadaheena aan u wadno ee Soomaaliya ka gees maanta looga xafladeynayo ama runtii lagu wada raaxaysanayo. waxyaabaha ay kaga duwan tahay waa la sheegay waa inay tahay koronto bii'ada la saaxiiba oo la yiraahdo tamarta cagaaran oo bii'ada la saaxiiba isla markaana waa inay tahay mid ku filan. maxamuud nuur maxamed warbaahinta qaranka Muqdisho.